بسم الله الرحمن الرحيم waxaa sharaf weyn noo ah maanta in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga ballaaran ee la socday aan ku soo dhaweyno garoonka Garowe garoonka General Maxamed Abshir ee caasimadda Puntland waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh noogu soo safreen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8 bisha waxaan ku faraxsanahay inay shacabka Puntland iyo dawladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya ee magaalada Muqdisho caalamka waxay noo tahay sharaf gaar ah waxaan rajaynaynaa muddada ay nala joogaanna inay wax badan oo wanaaga naga arki doonaan waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa haddii soo dhaweyntu culayska badan oo jira dartiisa wax naga xumaadaan in laga raalahaado waxaan ku faraxsanahay imaanshihiina waxaan rajaynaynaa in ay meeshaan ay noqoto kulan taariikhi ah sida wanaagsan ee aan kala harka lahayn ee dawladda Soomaaliya federaalka ah ee noogu soo karaamaysay annaguna waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay inaan noqono kuwo karaamadaas iyo sharaftaas loo sameeyo xasuusnaada horeyna u sii wada geedi socodkii Soomaaliya dawlad taabagasha ay u helayd waxaan insha Allah rajaynaynaa muddada madaxweynuhu joogana in uu la kulmi doono dhammaan xubnaha dawladda qeybahooda kala duwan baarlamaanka iyo inkastoo goluhu xukuumadda u dhisnayn laakiin xukuumaddii hore ee madaxweynaha madaxweyne ku soo dhawow magaalada بسم الله الرحمن الرحيم مدحويني adiga iyo xubnaha dawladda waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee waalidnimada leh adiga iyo shacabka reer Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweysay aniga iyo wafdigeyga iyo marti sharafta kale oo la socota runtii waa filaynay soo dhaweynta wanaagsan ee waalidnimada leh waa filaynay xaqiiqatan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan joogno adiga laba casho hadii Ilaahay yiraahdo waan idin la wadaagno caleemasaarka iyo xalka dabaaldega oo aan la hadalno shacabka reer Puntland khaasatan reer Garowe hadii ay yiraahdo waana ku hambalyeynaa doorashadii sida wanaagsan u dhacday oo transparency ahayd oo adduunka oo dhan laga fiirsanayay murashaxiinta kale iyaga naftooda waxaan leeyahay hambalyo yaan leeyahay sida wanaagsan runtii uga qayb galeen doorashada kulligood ay u aqbaleen natiijada taas waxay muujinaysaa Puntland inay tahay runtii dawlad dhameystiran oo muddo soo jirtay waxaan idin rajaynaynaa haddii ay yiraahdo guul hawshan Allah idin fududeeyo annagana fadlan ahaan waxaan diyaar u nahay wax alla wixii karaankeena inaan gacan ka geysano oo aan wada shaqeyno si aan dadkeena u horumarino waxay naga sugayaan haddii Ilaahay yiraahdo aan maxaan ku raahdaa aan ugu sameeyno waa maasantahay soo dhaweynta wanaagsan